呦我的妈！argagixisada aad sheegayso iyo ka soo bilaabataa isweydii bal iyo ka soo bilaabataa halka aad joogto maanta ama aad ku sugan tahay ama kaad horboodaysid ka soo bilaabataa kuna dhamaataa waana wax la og yahay Soomaaliya marka deegaankaaga iyo dadkaaga iyo hooyada iyo aabaha aad leedahay waa argagixiso hooyada iyo aabaha argagixisamiya laakiin aad ninka reerka tahay baan ogahay waxa la yiri aba iskuul meel wada joogo warna iskuma seegan reerka inaad taan ogaa oo shalay reerka ku jiray maanta xaga ka soo doobinayaan ku ogaa inaad tahay marka leedahay ciyaal baa la igu seexiyaa oo nugaal waan ka sheeganahay oo waxa rahay waxa kale yiraahdo ya maska duulahay adoo ilmaadeerada ku garab taagay ba fiican laakiin asoo wiil yar oo isaaq wax ku yeedhanayo ina waxa nasiib darro waxa kuugu filan 24 baad ka tagtay tolka ka goostay 25kiina waad weey wixii dhacay nasiib darradaada marka waxaan u maleynayaa reerka nimankaaban waxa ula tagtay nasiib darradaada bay la guul dareysteen baan u maleynayaa waxyaabaha ka khaldan baan ku sheegaya waxay yihiin iyo waxa aad fiicnaan lahayd inaad ku aamusto iyo waxay fiicnaan lahayd inaad ka hadasho maanta nin baahanta hadduu arko nin reer fuqshiniyo meel maraya xabad kuma ridi karo mana taaban karo Soomaaliya garan laakiin nin reer fuqshiniyo maanta waxa kan la yiraahdo qoristo meel ma arko meel maraya wallaahi billahi talaa kuwa la socota haday arkaysi bixinay Soomaaliya garan kuwa ay doonayaan iyo kuwa iyaguna waa isku mid Soomaaliya garan adiguna waxa tahay jaajuus baa tahay waayo ninkii shalay qoriga la goostay ee Soomaaliland ula galay ee ilmaadeeradii qorigii la yiri ku garab istaaga ama ilmaadeerada ku taageer la yiri ama ilmaadeerada kaga dhinac muuqal lagu yiri war dhulbaanta lagu ma oran daafac isaaqna daafac lagu ma oran dadkaaga iyo deegaankaaga ku ilaashaa lagu qoriga aday ka soo bilaabataa adigana kugu dhamaataa war nin tolkii shalay qori loo dhiibay oo hubkii tolkii siiyeen ama ilmaadeerada ku garab joog la yiri ama ilmaadeerada waxa kale yiraahdo garbahooda kaga muuqal lagu yiri adaa cadow la galay Soomaaliya midka maanta aan ku bixinayna adeerka ama hadduu arkay halka kaga dhajinaya horta adaa doontay maanta hadii la fiiriyo labada reer hadii la fiiriyana qolada reer Ismaaciil haday ka soo horbaxaan aan bixinayna wallahi waa la yaqaana Soomaaliya garan adiga halkaas iska soo horjeedo niman kala bad la socotaa wax la gooniya bad la socotaa aad hogaaminaysaa oo la socotaa oo soo dhaaranaysaa laakiin maanta nin baahanta hadduu arko nin reer fuqshiniyo meel maraya xabad kuma ridi karo mana taaban karo Soomaaliya garan laakiin nin reer fuqshiniyo maanta waxa kan la yiraahdo qoristo meel ma arko meel maraya wallaahi billahi talaa kuwa la socota haday arkaysi bixinay Soomaaliya garan kuwa ay doonayaan iyo kuwa iyaguna waa isku mid Soomaaliya garan adiguna waxa tahay jaajuus baa tahay waayo ninkii shalay qoriga la goostay ee Soomaaliland ula galay ee ilmaadeeradii qorigii la yiri ku garab istaaga ama ilmaadeerada ku taageer la yiri ama ilmaadeerada kaga dhinac muuqal lagu yiri war dhulbaanta lagu ma oran daafac isaaqna daafac lagu ma oran dadkaaga iyo deegaankaaga ku ilaashaa lagu qoriga neefiyo xoolaha Soomaaliya garan hadii aad intiba garan weyday intaad qorigii qaadato col la gashay haade colkii aan ilmaadeerada bixinayn war Soomaaliland aad sheegayso ama aad hadda hor kacayso aad leedahay inaan baashi riya haday dib loo dabada ku qarsanaa inaan baashi haduu tamar iyo awood leeyahay tolkii baa ku faari lahaa Soomaaliya garan asaga gacmo kuga bado maanta hadii la arko haragiisa iyo dubkiisa la kala siibaya Soomaaliya garan inaan baashana ku qarin maayo wallahi soo ku qarinayn hadii maanta lagu qabto in reer hebel aad noqonaysaa Soomaaliya asaga in reer hebel loo isticmaalay adiga in reer hebel lagu isticmaalay Soomaaliya sidaas aad lagu kala qayminayaa maanta nin ma qarin karo deegaan reer Ismaaciil leeyahayna waa la yaqaanaa maanta col ma haysto dadka leen deegaanka waa lagu xisaabtamayaa dhahaysana idin ma haysato in adeer col ma joogo Soomaaliya garan col ma joogo cidna ma haysato marka far dheeraatay noqon tolkaaga dhinac ka raacdan ku dhihi lahaa ama iskaba aamuso waxa aad cunayso ee lagu siiyay ee luflufka iska cuno iska aamus baan ku dhihi lahaa far dheeraatay noqonine Soomaaliya garan hadii aad wax ka hadlayso ama aad la hadlayso intaad leedahay argagixisada aad sheegayso iyo ka soo bilaabataa isweydii bal iyo ka soo bilaabataa halka aad joogto maanta ama aad ku sugan tahay ama kaad horboodaysid ka soo bilaabataa kuna dhamaataa waana wax la og yahay Soomaaliya marka deegaankaaga iyo dadkaaga iyo hooyada iyo aabaha aad leedahay waa argagixiso hooyada iyo aabaha argagixisamiya laakiin aad ninka reerka tahay baan ogahay waxa la yiri aba iskuul meel wada joogo warna iskuma seegan reerka inaad taan ogaa oo shalay reerka ku jiray maanta xaga ka soo doobinayaan ku ogaa inaad tahay
markaad leedahay ciyaal baa laygu seexiyaa oo nugaal waan ka sheeganahay oo waxaa lahay waxa ka la yidhaahdo ya maska duulaa lahay adoo ilmaadeeradaa ku garab taagan yihiin baa fiicnaan laakiin asagoo wiil yaroo isaaqa wax kuu yeedhanayo inaa waxa ka la yidhaahdo soo hadasho may ahayn Soomaaliga haddii aad maanta fuushini iyo waxa ka la yiraahdo dhulbaanta dab u kala qaadaysana dee fuushini iyo dhulbaanta dab looma kala qaadi karo dhulbaantana waa la yaqaan meesha jooga fuushini waa la yaqaan meesha isaaqna waa la yaqaan meesha jooga laakiin adiga balaa ka dalqaminaysa oo balaa ku wada taadi soo dhamaataan u malaynaya nasiib darro waxa kuugu filan 24 baad ka tagtay tolka ka goostay 25kiina waad wixii dhacay nasiib darradaada marka waxaan u maleynayaa reerka nimankaaban waxa ula tagtay nasiib darradaadii bay la guul dareysteen baan u maleynayaa iyo dulmiga lahay Soomaaliga midna maanta kuma ismanid Soomaaliga waxaan ku oran lahaa iskaga aamus waxaagana iska sheekh waxa ay daaraan walaalka ku taal dakharka guudkiisa waa loo daba walaa inaad darqada waacad war nimankaad leedahay in adeeraday waa argagixisay waa yararka soo bari u maanmaysid ma isaga ku xabaalay mise isaga waxan ka karanaya ya Soomaaliland bayna dar ku qaranaysa soo bari ka maalin ka soo hordimaysid war dadku waa kala deegaan waana kala dal nin walba deegaan buu leeyahay deegaankiisu leeyahay waad garanaysaa nin walba deegaan buu leeyahay deegaan lagu maqaldo Soomaaliga marka barito waa lama huraan waa cooska jilaal baa leh barito ilmaadarada baad u imaanaysaa sare ka carabtay neefow adoo ka gacmaha ku wata ee aad ka raacday mid aadan garanayn wallaahi billahi Soomaaliland sool ninkii keenay waa taqaanaa Soomaaliland nin magac loo waxa maanta ku sheegmay wad ogtahay meydkiisa xataa ma arag meel ma kaga warantaa wax jinni ma dardaray weey dameer baqtii kama duwan wallahi adigu hadda xaga ku dhimato meydkiisa naga qariya la lahayaa ama uu soo ururina naga qariya laakiin hadda xaqan ku dhiman lahayd wax kastaba ku dhimo oo waa lagu aasila waxa loo ilmaadeerada iyo tolka ku asturan lahaa Soomaaliga marka meyd fogeeyay baa tahay meydkaaga waad fogeysay waa fiican tahay ku soo qulay laakiin tolka iska soo dhax saaran waxa la ilaahay hadal gaf waa ka yeersiyaa kama sadhaaf marka dadaadan lahayn iyo dalaadan lahayn u soo doobinaysa waxba lagu xisaabtamaya iyo waxba argagixisa hada de waxa kale ilaa waa hadal gafa iyo wax meel ka dhaco ilmaadeerada iyo hooyada iyo aabaha iyo walaalada meel kaga dhaca meel ciyaal laga saxin jiray garan bayda waxa kale yiraahdo ya anigu waxa ahayd bagaran bay laakiin de waxa tahayba way ii cadahayba hadda lagu cabsi gelin jiray ciyaalka raggaad raacday nasiib darrada raggaad raacday may guul dareysteen waa lagu arki lahaa Soomaaliga garan anoo ahna wadiga leh maxaad ahayd ya dushaaday ka muuqan lahayd haddaad ahna tahay ya ninkaad sheegaysaa leeyahay garbacas buuye sharalaal muxuu yiri ina cambaashii garbaha casaad garanaysan war xaniyahaaga ku hadal leed kuwas haddaad walba kulli wax ku hadlaysaa xaniyahaaga ku hadal intaad nin isku loodinayso ninka ahna muxuu ku tarayaa kuwaaga ku faan oo xitaa dhaanaa matala reerka aan ka joogo oo sinniman la wahada kulba hadda dhimataal dhaho ahna dhintay marka aad iyo aad baan salaamaya